بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشركني تحناها أها لغو برناي معاملك iyo maareynta كسو دوادا عشركن إن شاء الله wuxuu ka bilaaban doonaa maanta wuxuu ka bilaaban doonaa hadii alla yiraahdo qorsheynta ayuu ka bilaaban doonaa qorsheyn waxa waaye waa planning in wax la diyaariyo shaqo kasta oo adduunka taala waxay u baahan tahay in la diyaariyo la qorsheeyo hadii la rabo inay guuleysato hadii looga baahan yahay in la guuleysato shaqada qorsheynta maamulku wuxuu qabtaa afar shaqo oo aad u weyn walow adduunka hadda waxyaalo lagu soo dardaro oo maalin walba wax lagu soo daro qorshooyinka marka ay qabtaan shaqada ugu weyn ee maamulku uu qabto waa qorsheyn taasoo laf dhabar u ah maamulka shaqada marka qorsheynta laf dhabar ayay u tahay shaqo kasta oo qofka maamulka ah oo qabto oo shaqo ka shaqeeyo maamulka waxa lagu qeexaa marka la joogo qorsheyn waxa lagu qeexaa hanaan lagu go'aansado waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo waxwaaye waa hanaanka lagu go'aansado ayaa la qorsheyn shaqo kasta oo qabanaysid waxay u baahan tahay inaad qorsheyso oo diyaariso oo dhahdo sidaan u qabana tilaabadan u qabana tana u qabana inaad dhahdo ayaa la rabaa waxa la isweydiyaa maxaa laga faa'iidaa qorsheyn ayaa la isweydiyaa maxaa laga faa'iidaa qorsheyn maxaa laga faa'iidaa ayaa la yiraahdaa sideeda waxa waaye horta qorshe la'aan waxa waaye waa guuldaro inaad guuldareysato ayay ka dhigan tahay qorshe la'aan qorsheynta waxa ugu weyn oo laga faa'iido waxa waaye waa qaabka la isku xir lahaa shaqada aad hayso hor yaala maamulka qaabka la isku xir lahaa waxaan qaabkan u qabanaa nidaamkan u qabanaa halkaas maraa ujeedkaas aan ku dhameynaa waa koob mid kale oo muhiim ah waxa waaye qorshe ya aragti dheer waxay keeni karaan guul ay keeni kartaa faa'iido ugu kale waxa waaye qorsheyn waxay keeni kartaa inaad guuleysato ayay keeni kartaa sababtoo ah waxa waaye wax walba hadii ku qorsheysan yihiin oo ku nidaamsan yihiin oo saas u qabana ay ku diyaarsan tahay waxa waaye guul ayaad gaaraysaa waxa kale oo aan bahalkii ahay ku daraynaa sifooyinka qorshaha laga rabo qorshuhu inuu yahay qorshe fiican iyo inuu ahayn waxa lagu kala ogaadaa inuu leeyahay qodobadan soo socda inuu leeyahay qorshe aan lahayn qodobadan ma ahan qorshe fiican ma ahan oo dhameystiran qorshe waxa waaye waa inuu lahaadaa ujeedo aad u cad horta waa inuu leeyahay specific ah objectives inuu leeyahay qorshe aad u cad ujeedo aad u cad qorshahan waxa laga leeyahay maxaa waaye waxaas iyo waxaas inaan ku fulino wax cad waxa ka hoos baxay markaas oo ujeedadaas cad waxa jiritaan sax ah ahdaaf fiican howlgelin toosan ya waxyaalahaas ma leeyahay labo waxa kale oo muhiim ah inuu qiimeyn hoos toos ah oo deegaan ka ah macnaha qiimeyn toos ah inuu leeyahay waxa kale oo jira in la yiraahdo kala xulasho wax la yiraahdo qiyaarad yani sifo ama qorshaha hadii uu salahayn kan hada ku guuldareysto kan maxaa sameeyay qorshahan haduu guuldareysto kan maxaa sameeyay qiyaarad la rahaa in la heli karo la rahaa contingency in qiyaarad in loo heli karo ayaa la rabaa waxa ugu dambeeya cashirkan maanta qaybaha qorshaha ayaa ugu dambeeya qorshuhu wuxuu noqon karaa qorshe maalinle ah wuxuu kaloo noqon karaa qorshe dhexdhexaad ah wuxuu kaloo noqon karaa qorshe keed ah contingency plan la dhaho wuxuu kaloo noqon karaa qorshe waqti fog ah ayuu noqon karaa macnaha qorshaha maalinlaha ah maanta marka shaqada soo gasho maxaa shaqo ku yaal task maxaa ku yaal hebel isla maanta shaqadan waxa la rabaa inay kugu dhamaato 8 saac xafiiska aad joogaysid inay kugu dhamaato qorshe dhexdhexaad waxa waaye qorshe adiga week 2 week bil amal leh bishaan maxaan qabanaa iyo waxaas qorshahan waxa la qorshe keed ayaa la yiraahdaa waa contingency plan waa qorshe
haddii qorshahan aad ku shaqaynayso uu guuldaraysto aad la soo baxayso ayaa la contingency plan lahaa. qorshaha waqtiga fog, qorshe oo waqti 1 sano 2 sano 3 sano mar waxay ku xiran tahay qorshaha adii qaabka u dejinaysid ay ku xiran tahay. qorshahaas waaye. marka casharkan intaas ku soo gabagabeynaa maanta. السلام عليكم. wax laga faa'iideeyaan rajeyneynaa insha Allah. wixii bahalkii uga baahantihiin waa nala soo xiriiri kartaa insha Allah. السلام عليكم.